suuqa dhexdiisa kumanaan hooyooyin ah ayaa maalin walba u istaaga halgan nololeed. Ganacsiyo yaryar ayay ku tiirsan yihiin, balse ganacsigaasi ma koro kamana baxo wareegga saboolnimada. Maxaa sababay? hooyooyinka ku ganacsada suuqa intooda badan ganacsigooda waxay ku bilaabaan maalgelin aad u yar. inta badanna ma helaan lacag ku filan oo ay ku balaadhiyaan ganacsigooda, taasoo keentay in faa'iidada ka soo baxda la biisho oo aan wax dhigaal ah loo samayn. 500 baan ku soo galay suuqa, 500 hadeer waxa aan ka hayo oo la fikiyo ma jirto. Ana igu baxday biil bay yahay, hadeer dayman baa la igu leeyahay. Hadba wax isku celin jirnay, wax soo qaban jirnay. Hadda wixii baa hawsh ka badatay hooyo. hawsh ka badatay, biilkii waa ka batay. Ganacsiga ilaa intaan bilaabay 2 sano aan bilaabay, wax isbedel ku yimid ma jirto. bartiisi taagin caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan wixii aan meesha ku hayay ayaa waxay yihiin wax biil laga rabo. ciyaal baan ka biishaa, barashaan ka bixiyaa, horti markiisa taagin sida ciladaas keentay in isbedel weyn yeelan. may wax kayda kama dhigto bartiisi taagin. waxa caqabadaha ugu waaweyn oo aan maxaan ku dhahay in aan waxba iigu dhigmi waayeen waxa keenaya biilkii waxbarashadii waxa ka raadaysaa. walaal ganacsiga anigu muddo 8 sano baan miiskaan aan fariistaan wali fadhiyaa. ganacsiga maanta joogana maanta ayuu caqabad dareeyay. baahida macnaha xoolaha maanta loo qasho oo aan u saarnaa waxa kamid ah ilmo yar baan ku korsadaa. wax laga kaydina male mid iga raacdo ma ahaan mid macnaha ay meel iga taala oo macnaha dhaqaalo oo aan ku koriya ma jiraan. nolol maalmeedka qofka maanta helo qoyska waxa dhici karta maanta oo kale inaad ariga ama xoolaha markaa qashado miiska saartid oo laga gato nolol maalmeedka wax dhaafsanaad helin. biri qashid oo hadana lacagtiisa go'do oo qaal kugu haro oo lacag kugu noqoto raysto. raasumaalka waxa la yiraahdaa ma capital badan kuma asaasan waxa laga yaabaa in capital yar ay haystaan, taasuna waxa ka hor istaagaysa in uu kobco. maamulka ganacsiga ay leeyihiin oo macnaha xadidan yahay waa dhici karta kadibna qofku inuu maaragtay faa'iideyn oo khasaare in waxyaabahaas inuu macnaha uu ogaado inay adkaan karto ama ka hor istaagayso inuu maaragtay uu kobco. ganacsiga yari ma aha mid faa'iido soo saara, balse waa isha keliya ee qoysku ay ku tiirsan yihiin waxbarashada carruurta, biilka xaafadda, kirada guriga iyo dhammaan nolol maalmeedka qoyska, taasoo ka dhigaysa ganacsiga inaan wax faa'iido ah dib loogu celin. hooyooyinku ma helaan tababar la xidhiidha ganacsiga iyo maamulka, kaydinta, xisaabinta faa'iidada ama sida loo kobciyo ganacsiga yaryar. aqoontaasi waa furaha koritaanka, balse waa mid maqan. ganacsigu wuxuu dabooli karaa in lacag meel ku taalo oo aad ku dabooli kartaa markuu kugu go'o. aniguna ganacsi meel uma dhigto nolol maalmeedka baan ka raadiyaa. sidaas ayaa keentay inay isdabooli weydo xoolaha miiska isaar ay meel gil ma helaan, lacagteedana ima taalo oo kuma dari karo waayo asagii maan biishaa. inta badan hooyooyinka ganacsiga leh ama dumarka ganacsiga yaryar ganacsigooda wuxuu beesgaraysan yahay nolol maalmeed oo guriga waxa weeye laga kabaa oo waana lagu noolaadaa. afka qaado waxa lagu yiraahdo subsistence business ama dhaqaalaha lagu dhaw macnaha ganacsi lagu noolaado. marka maadaama wixii lagu noolaana biilkii laga dabirayo business wuxuu rabaa in la kobciyo oo dhaqaale lagu soo diro, taasoo ka hor istaagaysa. waxa keenaya horta inta badan sida aan aragno hadda suuqyadan oo kale markaan fiirino ama ganacsiga in maamooyinka xisaan fiirino hooyooyinku ganacsi inta badan waa isku mid ma kala duwanaa. marka ganacsi haduusan kala duwanaan tartan badan baa jira, tartanka adag waa ku keenay in qofku meeshiisa uusan dhaafin. waxaa ka mid ah horta siyaasadaas waxaa ka mid ah in hooyooyinka la siiyo lacag yar waxa la yiraahdo microfinance in la siiyo ganacsiga ku balaarsadaan, in sanduuq u gaar loo sameeyo sida adduunka kale laga sameeyo oo waxa weeyaan laga taageero. bangiyada hadda jira waxay bixiyaan amaah dulsaar leh oo u dhaxaysa 16% ilaa 20%, taasoo aad ugu culus ganacsatada yaryar, gaar ahaan haweenka. hooyooyinkani ma haystaan damaanad, mana awoodaan inay bixiyaan lacag bilaa. sidaas darteed albaabkii maalgelintu uu ka xidhan yahay. sanadkii hore dowladda Puntland oo kaashanaysa bangiga dowladda waxay hirgelisay barnaamij maalgelin ah oo ku saleysan iskaashatooyinka ganacsiga. qorshuhu wuxuu ahaa in lagu xoojiyo ganacsatada yaryar lana kobciyo dhaqaalaha hoose. ganacsatada iyo bahwadaagta horumarineed si ay uga wada hadlaan sahminta xalal hal abuura oo lagu
ballaarinayo fursadaha maaliyadeed ee lagu dhiirigelinayo ganacsatada. hase yeeshee xaqiiqada suuqyadu waxay muujiyeen in inta badan ganacsatada yaryar gaar ahaan hooyooyinku aysan ahayn iskaashatooyin balse ay yihiin ganacsato keliya oo la tacaalaya nolol maalmeedkooda adag. qaar badan faham buuxa kama haystaan nidaamka iskaashatooyinka mana haystaan awood ay ku midoobaan. dhanka kale bangiga dowladda Puntland weli ma soo bandhigin warbixin cad oo muujinaysa natiijada laga gaadhay iyo saameynta dhabta ah ee barnaamijka iskaashatooyinka ku yeeshay ganacsatada yaryar.